السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا سومالي هيلث لايف ستايل ون channel هذا لا بكلا حديدان في عافماتك بسيطة إن داس من عرق مشغول كجرا واحد حدي مانتا يوم المهم بام حدي عصب إن أي أروينه طالبان كتجعلم جري أفغانستان مدوينكي نتورد عفوران أي حكومتي مغرنا سايكم الجار كهيدا ما حكومتي طالبان هيسين شرتي maraykanka iyo wadamada kale ay ka ku ilaalin jireen in ay magaranaysaa markii maraykanka iyo xulafadiisa kale baxeen ay Talibanka ku soo ruqaansadeen wadankaasi oo ay si fiican hada kaanta ugu soo dhigayaan Talibanku waxay la dagaalamayeen ciidamada huwanta ah ee maraykanku hogaaminayo muddo 20 sano meelahaas ama muddo 20 sano ah ay la dagaalameen markii magaranaysaa maraykanku soo bilaabay dagaalka oo ka dhanka ah xukuumadii ay markaa haysteen xukuumadda Taliban oo magangeliya siisay Osama bin Laden adoo waxa dhacday waqtigaas in 2001 ay magaranaysaa dhacaan weerarkii lagu qaaday taariikhi dheeraad ee maraykanka 12 September ilaa hadana laba ogaa inta ka dambeysay inkastoo la yiraahdo maraykanku isaga filimka ka dambeeyo hawlahaas isagu gacantiisa ku maamulinayay laakiin waxa marmarsiya ahayd in ay waqtiga ku soo duulaan wadanka Afghanistan oo ah wadan aad u adag xagga magaranaysaa cimiladiisa noloshiisa yani dhaqaalihiisa waxa soo dhamay aanu kaasa ka saaciday inuu iska celin karo ama uu baadhi karo ciidamo kale oo shisheeye waa wadan yani dhan kasta ka xiran oo maxay wadamada waaweyn ee Pakistan iyo India iyo China ba hareeraha ay ka wada xigaan oo ah wadamo nuclear wada haysta isaguna uu yahay wadan aad u faqiir oo magaranaysaa yani dhan kasta maxay aan bad ku lahayn wax bada aan kulaalin wadankani marka maxay la eego sida maxay qabaylkiisu kala degan yihiin qabaylka Pashtunka iyo waxa ugu badan magaranaysaa wadanka magaranaysaa de haysta sida maxay wadamada qaar kood ay magaranaysaa qabayl u dhisan adoo wadankaas qabayl buu dhisan yahay maaha markasta xukuumad magaranaysaa dimuqraadi inay ka dhalan karto waxa dhici karta markastoo magaranaysaa qalanqal ama qas siyaasadeed galo in marka maxay hub magaranaysaa ay haystaan shacabku oo dariiqa ku soo faafo oo nidaamkii dawladdu markaba uu siiro degdeg oo burburo sida wadamada يعني السودان وكله وضمضة مثلا ليبيا يمن وكله سوريا وكله صوماليا وكله وضمضة كقبيلة محل هذا يعني سيدك دي مركب بربور كران هذه تقال يركضوا أضو المهم مرايكن كماش أسوا وصورري وقت جاز لابد يكون يكودي بشي سبتمبر وحي كدم بيسي سوى مرمرسية كده أنا يا World Trade Center سكيم كنا ساي ور كداي wadankaas waxa uu geliyay maal fara badan buu geliyay ciidan fara badan buu geliyay naf iyo maalba uu duligay magaranaysaa maamulkii Bush iyo maamulkii Obama ka dambeeyay iyo kii Donald Trump oo soo qudhiso aakhirkii magaranaysaa noqday madaxweynihii ka soo saaray ciidanka yani ciidankii Maraykanka Afghanistan ka soo guray waxaana dhacday waqtigii magaranaysaa Donald Trump adoo sanadkii hore inuu la shiray Taliban oo kula shiray gaar kula shiray isagoo de qaranaya in lagu fashilmay magaranaysaa ciidamadaasi inay joogaan halkaasi ama ay wax natiijo ka soo kordhiyaan isagoo financially ama economically buu maxay ku base gareynayay oo wuxuu meeshan waan ku riiqanay wax maxay dhaqaale inaga soo galayana ma jirto wax aan ku bixin mooyaane wax تهديد أما واحد threat أو إنه هيان أو ما أنت إنه ده وقبضان كرنا إن الطالبان وتكين إنه يسود ولا نمجيه so يعني there is nothing أو أنا سيجوي كرنا أما واحد فائدة وسيجوي كرنا بحدي يعني أفغانستان أما وطن كلا أما جري كرتهم مع حتى بحدي حتى العراق إنه مقرنص وحي جوي كقري أي العادي حتى مقرنص المهم يعني ماشاس أفغانستان مركا ويس بنايسي مركي اللي هشيس لقلين بريكن كينان مقرنص أي اللي سكسو ضحن بابين nimankaasina ay noqdeen niman adag oo dimuqraasi nimankaas Maraykanka u babacdhigay iyo xulafadooda oo babacdhigay 20 sano ugu dambeeyay de buuraha kula dagaalamayay inkastoo wadankaasi aad u riiqday oo dadkii magaranaysaa xataa rayidka ahaa de maalin kasta ay drone lahaynayso sida mesela koonfurta Soomaaliya ay de ciidamada Maraykanku drone ugu laayaan dadyow rayid ah oo raacata ama
xoolo kale la jooga ama beeraleyba iyagoo ugu soo burmarsoonaya in ururadii al-shabaab ku joogaan halkaasi marka adigu meel kastoo Mareykanku meesha uu galaa waxa weyn waxay noqotaa meel yani aanu faa'iidana ka keenin yani noloshii caadiga ahaydna uu dadka ka kaxeeyo magaranaysa المهم waxa dhacday nimankaas Taalibaanku inay waqtigaas oo dhan maxay la hirjadiyeen aakhirkiina ay noqdeen quwadii ugu dambeysay ee wadanka gacanta ku dhigi doonta maalmahan waxa ay bilaabeen in ay ku soo siqaan caasimadda qabsadana meelaha ugu muhiimsan inkastoo ay magaranaysa nimankaasi sidii hore aanay ahayn oo ay rabaan inay magaranaysa qoyir socod ku yar muujiyaan waxyaabaha ay sheegeen waxa kamid ah in ay dumarka maxay makaano fiican siin doonaan adoo yani ay maxay bedeli doonaan habkii ay la dhaqmi jireen qalafsanayd ay noqon doonaan yani dumarku inay xilka qayb ka qaban doonaan in ay madaarista wax ka dhigi doonaan in iskuulada iyagu dhigan doonaan in ay dawladda ka shaqeyn doonaan waxaasina wax maaha yani boqolkiiba boqol maxay meesha ay ka fulin doonaan oo waxa ay ka hor imanaysaaba ajendahoodu sidoo samaysan yahay marka adigu waxa weeye indhaha caalamka iska yar jeedinayaan marka hore kulli laakiin madhow bilaa soo socota marka ay si yani buuxda u qabtaan wadanka waxa suuragal ah inay magaranaysa halkii hore iyo meel ka fool xunba ku celiyaan adigu qof مثلا يعني islaam wax ku dhaqaya wax ma xumeeyo laakiin waxa meesha maxay wala waxa weeye in ay dadka magaranaysa reer galbeedku aanay fursad siinahayn cidii wada in magaranaysa fikir islaamiya ama مثلا shariica islaamiga meel ka hana qaado okay waqtiyadii magaranaysa 2006 weyn ogeyn yani Soomaaliya waqtigii magaranaysa ay qabsadeen maxaakiimtu isla markiiba waqtii magaranaysa Ethioopianku ay soo galeen wadanka wixii meesha ka jirina ay kala tuureen iyadoo magaranaysa ay heliyeen yani muxuu ahaa adoo yani musaacado fiican ay ka heliyeen caalamka kale oo Mareykanku ugu badnaa magaranaysa Bush baa ahaa qofkii markiiba isla maalmihiiba ka hadlay magaranaysa 6 bilood ee horeba intii ay maxaakiimtu haysteen si joogto ah hadlayo lahaa Soomaaliya waxa ku soo noqotay argagixisada ku soo noqotay ama argagixisan yani rasmiga ka dilaacday oo saasi marka ku dhacday inuu maxay faragelin aad u magaranaysa qaabin ku sameeyay isagii Ethioopianku ay ku sameeyaan hadda waxaan ognahay wadamo badan oo Mareykanku markuu galay oo magaranaysa zero de foolxun magaranaysa uga baxay waxa kamid ah Vietnam waxa kamid ah wadankan Soomaaliya waxa kamid ah Iraq waxa kamid ah Afghanistan wadamo badan oo magaranaysa intuu maxay yani oo dagaal ku galay haddana aan wax natiijo ka soo qaban ama maxay ku fashilmay oo fara badan baa jira waxaanay ku dhisantahay siyaasadda ah muqoonintu marnaba maxay waxba maxay natiijo ma keento اتحادkii Soviyetka ama مثلا midowgii Soviyeeti waqtiyadii 80-aadkii markii Afghanistan haysteen waxa dhacday in uu Mareykanku soo magaranaysa tababaray dad fara badan ama مثلا maxay financial soo yani gacan qabtay si ay uga soo dagaalamaan baash Afghanistan uga dagaalamaan Sovietkana meesha uga saaraan marka aakhirkii hadana way isku leeyihiin oo Taalibaanka ba kamid ahaa dadkii magaranaysa marka la daaminayay Mareykanku daaminayay waxa ka kamid ahaa ururkii magaranaysa al-Qaacida baabay marka urur kasto meel ka dagaalamaya marka hore wax laga yaabaa inuu maxay xoolo siiyo hadii uu arkayo inuu siyaasadaas uga faa'iideyn karo مثلا awood kale oo meesha ka jirta oo meesha ka saari karo kadibna ay markaa isku rogaan adigu isku soo doob nimankii Taliban wadankii dib u qabsadeen maalmaha soo socda waxa la arki karaa siiba horta maanta oo kale maxay ama shalay waxay maxay soo jibiyeen jeelashii waaweynaaye ay ku xidhnaayeen dad yowga magaranaysa rayidka ay iskaga xidhnaayeen Mareykanka iyo dawladda magaranaysa meesha ka jirta ay ku xidhatay ay hada ooda ka gureen masaan xaabis badan baa dibadda joogta ay ku jiraan dad yow caadi oo iska si dulmiya u xidhnaa iyo dad yow magaranaysa yani dambiilaha oo xidhnaa dabajiir badan oo xidhnay waxaas oo dhan maxay wadankii baad dhex tigaafayaan xaalad marka qalalaansa ah ayaa laga yaabaa inay bilow noqoto laakiin Taalibaanku waxa ay u leeyihiin maxay awood in ay waqti gaaban gudihii wadanka magaranaysa kaga dhigaan wadan nabad ah oo aan hal saxar laga dhex qaadi karin halka ay la socotaan waa Soomaali Health Lifestyle 1 channelka laba kala xidhan wixii caafimaadka qoseey maanta caafimaadku ma saabsana laakiin arrimaha maxay ka soo cusboonaaday Afghanistan ayaan maanta ku soo qaadanay intaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.